dadka koonfurta ku nool and I believe it ee ku diganaya waxa ka dhacay magaalada Garowe waa kuwii isbaarada iyo xaaraanta lagu soo koriyay koonfurta waa from Gaalkacyo ilaa iyo Kismaayo marka meeshaas waxa kala soo baxaysa inta jawaabaysa aada soo akhriya Soomaalidu waxay tiraahdaa far iyo meel bugta dadka hadda oo maanta iyo shalay iyo daraad wax wareeba ka dhacay Garowe ku diganaya waxay baarka arkaan siyaasadda ka arkaan waa saa sheegtay Ibrahim absolutely saa sheegtay Xasan Sheekh biladu ku jira waxa waardiyay sida White House kala waardiyay Denis soo kale Musa soo kale masaakinka commonka aan adiga dhimanay laakiin qofka aqliga aan lahayn oo meel intuu ka fursan Axmed ka sheegayso waa mid oo amxara la yaqaano maalin wuxuu iska soo dhigay hawiye maalin daarood maalin isaaq maalin digli milifle waa wax nolosha ay ka dhacday oo ma aragtay opportunity ah marka dhulka laga soo qaado laakiin aniga qof aqli leh oo dhiig Soomaali ku jira intuu soo istaago qabiil ku justify gareynaya oo dhahayo reerka aniga la yiri waa ka dhalatay haday maanta dad xasuuqaan miyaan leeyahay waan iska no haddii laga gardaran yahay waan la safanaya haday gardaran yihiin waan ka jeesanaya laakiin dadka waxa ka maqan intaas oo kale ninkii hadda hadloo kale qabiilkaaga sheego sababtoo qabiilkiisu taageeraya nothing else wuxuu ku leeyahay qabiilkayga waa saxsiin mar walba ma saxsana qof walba reerku ka dhashay qalad uu galay meel uu doona ka imaado waa la ogyahay hadda qofka ku farxay waxa Garowe ka dhacay xamar ka dhacay ama Gaalkacyo ka dhacay idaas maanta meel ka dhacay waa qof axmaq ah aqligiisa lagu soo koriyay waxaana waa lagu soo koriyay ku dheeraan waa soo abjarayay waxaan waa lagu soo koriyay qofka hadii la baro maanta markuu dhasho wiilka dhashay ama aan dhalay ama gabadha dhashay ama aan dhalay hadii lagu barbaariyo Soomaali baa tahay Soomaali ma ku dhalto ku dhimanaysa taas ku baxaya laakiin hadii la yiraahdo qof Soomaali ah gabar Soomaali ah ma guursan kartid sabab waxa la yiri lama guursado kun sano ka hor oday waalan oo crazy wuxuu yiri waxa la yiraahdaa midgaan ama gaboyal lama guursado waa lagu koriyay the same time gabdhaheeni Hollandereyaasha nasabka waxay guursanayeen niman atheist ah oo ilaahay aan aqoonin waxa dhaama yahuud iyo kristaan baa dhaama oo ahlu diin oo kitaab aaminsan waxa aaminsanaadaan laakiin waan wala raastayna waayo waaan waxay ahaadaan maanta waxaan taageeraynaa si aan kursi aan u helno qowmulud baan taageeraynaa marka ninka intuu ii yimaado waxaan nahay dad noble ah oo wanaagsan oo inta meydkoodii ku diganaya oo lagu sactumayo waxaas waxay noqonaysaa war qofka taageer Xasan Sheekh taageer farmaajo taageer ka soo horjeed Xasan Sheekh is responsible qabiilkiisu waxay sameeyaan farmaajo saas oo kale Axmed Madow saas oo kale Denis saas oo kale maanta qofka intuu soo istaago yiraahdo Faysal Cali Waraabu yiri baga waxa ka dhacaya baalki Garowe Faysal ma ahan ciyaar TikTok ma waa nin weyn oo mas'uula inkastoo uu yahay maaragtay hadaladiisu uu kan laga soo qaadin baga ayuu yiri marka Faysal intee dhageysan karta thousands of millions oo reerkiisa waxay yiraahdaan baga why last caanood waxay ka sameeyeen last caanood reer Puntland waxba kama sameeynin qaraabo weeyihiin qaraabanimo waa la isku gargaaraa waa la soo dhaweeyaa laakiin de baraawe waxa ka socda reer baraawe inuu yiraahdo baga waayo last caanood iyana waa Soomaali Soomahan ama reer Gedo uu yiraahdaa ama reer Hiiraan uu yiraahdaa ama reer Mudug uu yiraahdaa waxay ku tusaysaa mindset-ka ari siyaasi ma yihi haddaan ahaan lahaa xataa ma samayn lahaa waxaas oo kale no waan sariigan lahaa qofka bani aadamka ee Soomaaliga ee muslimka waxba tari mayso salaad baan soo tukaday iyo xajkaan aaday iyo camalkaaga kaaga horeeya ninka Soomaaliga ah Faysal markuu xajka aada maanta I don't believe it hadduu kacbada ku soo wareegsado why wuxuu yiri baga waxa ka dhacay bahalkii maxaa la yiraahdaa Garowe because siyaasadiisa iyo waqtigiisa yar ila 6 jir haduu dhaafay 7 jir uu yahay wax yar ba u haray Soomaali ma gaaran halkaas Elberde laas caanood Garowe waa loo jeeda banaanka la soo dhigay laakiin qofka hadii aad leedahay wax walba oo dhaca reerkiisa inta iyo I suppose haduu ahaan lahaa daarood I'm sorry ama Mariixaan ama Majeerteen ogaadeen we wouldn't even have this discussion laakiin Soomaalidu waxaas waa necab yihiin you see the reason why some people are doing is because waxay arkaan nin hawiya meesha fariin daarood uu bedel taasi arkaan kaliya dad qalkood afkoos adiga kuma leeyahay ku socda waxa ku xiga ninka la yiraahdo Mr sorry Duniya gabar la yiraahdo ku xigta Duniya Ismaaciil oo ku soo laabnaa Duniya Ismaaciil hore u soo galay waa maasantahay Cabdinaasirow anigu wax badan ma oranayay maartay hadii dadku CT oo kale dad u leeyahay qabiilkiisa ha sheego aseekiisa ma sheeganayo ولا أنا أم مريحان ولا أم مريحان from Gedo so أديك نو شيء مركب قبيل كان لازم you asking me qabiilkayga aniga qabiilkayga waa Soomaali ay waa ka gudbay waxaan haystaa a PhD on computer science 10 years baan jaamacad dhigaa waxaan soo dhigay 14 jaamacadood hadii categorigaas oo qabiil fiican igu geynayso aniga qabiilkayga waa Soomaali waxaasna ka soo gudbay qabiil lacag kuma helin
qabiilna kuma faano qabiilna marka karfanta la geliyo lama dhahay laandheerihii reerkaas ku jeeda dhimanay marka that's my qabiil my brother so do waa mahadsantahay We're mahadsantahay talking ana about politics, cabdinaasir like in Abdinasir. We're ct talking about ct politics, bluudka not galde dada personal, hadlaaye not waa maxay personal ninkan achievements, you know. But kusa wala. fiiri ct waa mahadsan tahay anigana wiilkaas cabdinaasir ha ku qabiilahay soomaali ahay laakiin maadaama maanta oo dhan dad maaragtay hal dhinac u raran oo maaragtay caraysan oo maaragtay si maaragtay ma garanaa meesha wax ka gaareen waxaa rabaa keli inaa ogaado madaxweynihii horeeto wuxuu waraaquu soo diray wuxuu ku baaqay inay maaragtay garow arrinteeda la xaliyo intii dhibaato dhacaysana soomaaliya ugu dambeeyay qaraxii ugu weynaa hadda maaragtay sooba ka dhacayay hoteelkii la weerarayay baraab waxaa ka dhacay maxaa ceelberd waxaa ka dhacay inta qalalaasa ka socoto wadanka weli ma arkin asagoo dhahayo hala dejiyo ama maaragtay allah u naxariisto so waxaan rabay marka wixii qabyaalista yaa soomaali u xun midda kale taa rabay inaan ogaado maadaama iskugu yimaadeen dad aan ku tuhumayo xoogaa inay maaragtay eroon yihiin waay mar walba ay soo dhowdahay doorasho ama muddaxileed uu dhammaado madaxda soomaaliya uu u bilaabmaa qalalaaso iyo dastuur bedel iyo one man vote iyo waxaa la aadayaa u bilaabataa maxaa looga gudbi layahay maaragtay maadaama la yiri dowlada la dhisanaa dadii soo qaateen maxaa la dhahaa isheeg maxaa la dhihi jiray baarlamaan la samaystay oo maaragtay meel la iskugu imaaday maxaa marka baarlamaanka iyo maxaa marka horta loogu hortegi waaya maxaa mar walba deegaan ha ahaado goboleed ha ahaado wuxuu raba ahaado mar walba muddaxileedkiisa sii dhamaana sanadka sii dhamaanaya qalalaaso u weeyaan marka maxaa ma wax soomaaliya u gooni ahaa mase wax adduunkoodna kala mid nahanay marka dadka kaleeta ku tilmaamayay waxay yihiin adiga horta isfiiri maaragtay calculate isku samee you are not better qof ka wanaagsantahay ma jirto soomaalina inta badan ma kala wanaagsana marka inkastoo aan rabo xoogaa inaan maaragtay dhooqeysto maadaama dadaa xushmeena meesha joogaan gabahna iga siistay laakiin meel kaleteen ii taalaa insha allah waa inood garaysan yihiin marka adeeradiina markay dadka maaragtay qaaska ah ay usoo jeedinayaan nabadda soomaali oo dhan nabad ha ka dhigaan marka saasoo soomaali oo dhan baaqa usoo jeediyaan dadka weligiisa usoo jeedinin marka intii dhimatana allah u naxariisto maaragtay inta dhibaatada haysana allah ka qaado raggeena soomaaliyeed oo mas-uulka naga ahna maaragtay ilaahay ha ku aadiyo wanaaga marka waa salaamantiin dhammaantiin waa iska aada u mahadsanta duniyo intaana qof u dhiibin labadan su-aal si 10 seconds ina ugu jawaab horta one thing I can say to you is intaan qof inta ku jirta aniga u malayn maayo qof farmaajo iga badiya and I know him since 2009 kana isnaqaanaa waxaan ku tilmaami karaa least qabiilist oo Soomaaliya least ninka ugu dambeeya oo lagu eedeeyay qabiil waxaan aniga aan aakhir u soo fadhiisan karaa inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo personally ana waqaan aan ogahay qofka actionkiisa ku xiran tan uu qabiilistay oo aaminsan waxa soo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nationalist way qabiil waa ka fogyahay waxaan xasuustaa personally hadda ka hor waagii asaga madaxweynaha uu ahaa personally in اسمه بدل كرع عبد ناصر اسمه no no hold on one second let me no qof bedel abayo one second duni qofka lagu majaaj garan kara ma ogtahay wuxuu asaga soo qoray intentionkiisa anaga caloosh kuma jira ma ogtahay waxaan xasuustaa aniga 2000 I think 18 kii dhamaadkiis in gudoomiyaha bankiga dhexe la soo xulayay nin reerkiisa oo Mareyxaan ah oo PhD economist ah well experienced ah ayaa topka ku jiray xilligaas waxyaalaha kaliya aan dhihi karo waxay tahay uu jooji waxay tahay amaal u yiraahdaan in Mareyxaan meesha keentay waxyaalaha aniga aan madaxweynaha xataa isku dhaafnay xilligaas waxa aan dhahay madaxweyne Mareyxaantu Soomaali Soomaalian dhahay waxa kale oo ku xigtay aan ogahay qarno daad ayaa qaaday oo buuraha ka yimid same time baar dheer oo geda ah waxa ka dhacay fatahaad webiyeed aad iyo dhibaato soo gaartay madaxweynaha xilligaas xitaa ma soo meeshin garin gedo laakiin lacag baa loo ururiyay qardho waxyaalahan kala yaabay ahayd madaxweynaha intaas wuxuu iska ilaa which is completely wrong by the way in uu gedo u dhaho lagu tilmaamo marka maanta qofkii yiraahdo anoo nool Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabiilista of course dadku waxay arkaan they see the things black and white waxay leeyihiin muxuu maanta u yiri ka oo u dhihi way meeshaas kale hadda hadii bari la dhihi lahaa arinta gedo hadda for example hadduu maanta ka soo hadli lahaa qofna ma dhihi lahayn ninkii wallahi Soomaali u turay oo naxw xaleena here we go madaxweynihii
reerkii meeshii soo galay ayaa la leeyahay isagoo shaqaba aan ku lahayn gado oo reer muqdisho uu yahay taas waa mid tan kaloo ku xigta you absolutely right xilkan iyo awoodan privilegekan la haysto ani 100 jeer aan isweydiiyey waana soo ogaaday waxaan soo ogaaday dhowr jeer baa madaxda qaranka waxaan u raacay maaragtay state visit baan u raacay ama Maraykan ama Talyaaniga kuwan goboladan iskaba dhaafa markaad tagtid VAB nimada aad kaga duushid airportka hotelka VAB da degtid business class-kaaga shopping-kaaga lacagta aad helaysid noloshaada dama aadan ka fikirin intaas ayaa u yeelaysa Soomaali horumari iyo qof Soomaali u turaya maanta shacab xabad iskuma tuuri lahayn so all of them expression ayaa jirta aad u foolxun Soomaalida ay tiraahdo iyo labadiis dhagood ay yiraahdaan waa expression iyaga kamoodi madaxda kamoodi of course sida awgeed sababta loo kordhisto ma ahan maxaa la yiraahdaa wadanka wax u qabo qabiyaad maraysa waxaan sameeyay no it's nothing to do with enrichment qofkaas uu samaysanayo privilege kan asagii asxaabtiisa iyo tolkiisa iyo dadka kale markaas hadduu corrupted yahay u dhow they don't see as a corruption uma arkaan waxay u arkaan privilege iyo awood la siiyey haddii maanta ay ahaan lahayeen maxamed bin salmaan ama maxamed zaid kama welweleen way forever ayay ku noolaan lahayeen laakiin waxaan kusoo gabagaynay the biggest problem aan ku arkay hadda shalay aan kasoo tegay xamar aniga I was there 7 days shalay aan kasoo tegay waxyaalaha ugu daran waxaa arkaysa anoo wasiir ah lacag badan soo gasha waxaan haysta 3-4 bulletproof askar ay waardiyeysa diyaaradda immigration ma maro boorso ma qaato diyaaraddan kora first class waa soo duula adduunka lagu soo dhaweeya all of a sudden within 4 years xildhibaanadii waa luminayaa wasiirnimadii waa luminayaa hoteelada magaalada xataa qof shahay lacab ay mareen because I was a prick markii hore dadkan ma salaami jirin arrogantaan ahaa education background-ka waa hooseeyey so the reason aan kusoo gabagabay ay ugu darsanayaan ma ahan jacaylka Soomaaliya iyo Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle ma ahan iyo Galmudug waa privilege-kaas ay haystaan oo markaadna ay ka baxayaan maxaa ku dhacay kuwii oo ka baxay horay wallahi qof salaam xasan banaanka ay joogaan marka waa ka baxay waxaa ku xiga gacmo badan baa taagan waxaan filayaa inuu ku xigo samatalis ku socoba samatalis ku socota masaasa ku xiga مين مقشع عبد الناصر si fiican awood ونيه هو أفر أرنا كهذا لها أنا معناها ماركتي سياسة سوماليا 20 سنة لسه العفي وأرضي أنا وهاي marka afar arrin aan rabaa oo meeshaan aan ku arkay oo muhiimna ay tahay maxaa dhacay 10 sano camalan ka fikiray marar badan waa sheegay meel badan waa ka sheegay dadkii yaqaanan waa ogyihiin haddana qoraal dheer aan ka diyaariyay oo arrintan Puntland uga hadlayay aan aqoontaasi waa aragnimo sadeegsanay waa kula talinayn akhrisin waxaa jirta islaamku wixii ka horeeyay waxaa la dhihi jiray waana soo kooba because maxaa dhacay time kana very sensitive way islaamku wixii ka horeeyay jaahiliya la dhihi jiray macnaha jaahiliyada asalkeeda waxa way reerkeyga gari gardaro jaahiliyada taas waa ورنا حتى حق جركة أو سيد كتب كيسة ماركتي مايلستون معلم في الطريق حتى وين كهلا ينتاسوا أو ماركتي أنا ريركي جري قدر جاهلي ويتاس إسلام كانوا وحاول السجن تيلو وحير كبدلي وحولي هاي رير تولكا هدي جري لي جري قدر أساسه لها لكن كافيت وسمعنا وحولي هدي قدرين هين قبو هدي جري هنا تعير كنا لما تاس marka taas waxa waaye fikradda oo xaakimiyaha ugu yeeraa ninka la yiraahdo asaga xataa waa cala mawduud ka soo qaatay I really encourage you in fikradahaas akhrisin maxaa dhacay qabiilka anaga dhibaatadan haysto waxa waaye xataa kii islaamka looga baxayo waa macna si loo fi gardara markaa tiraahday jaahiligaas ay gelaysa anu hadda ma hayad wadaadadii businesskaas wadaadada qaar kood ma gelay dadka lagu galaysiinay taas number 1 waa number 2 عبد الناصر سؤال ما أركي أو أرنت سوماقسي أرهم بدن كهلاي أرنتان هاد جرو كده عدن حرير لهذا أرنت حمر حرير لهذا سوماليا دبعت تقول إنه هيستو حوا divided sovereignty أجرت monopoly of mechanisms of coercion مجرو هل قف أو عيدن كي يوحي هاي أو تلذي سي أي شرعي أو شقين زي مجرو هذا ربنا ترى سؤال حانو كلا قبائل هو بيسن وحي هذا مجال هذا كده قال لما أي إنك سو دولة أي ماركتي أي قيب كيهين هذا هوب تكنيك أي بعلها ليه هنا الوجود الري haddii marka hadda tusaale ahaan oo kale to liiraan hebel soo xireen noqonay qabaa'ilkii marka ma dhicin monopoly of the institutions of power ma dhicin Soomaaliya dib ka jirta taas waa xamar hadda saasi ka jirta qabaa'ilkii ah hubaysan nin marka hala soo qabtay reerkiisa soo qabsan marka maxaa loo baahan yahay laba mid ah marka dawladnimada lagu gaara midna waxa waaye coercion khasab inaad dadka oo dhan hubka inta ka ururisid sida shabaabka saartay asamaysid waxa wanaajin kartid wanaajisid coercion waaye kaaskii shalay dagaalka laga galawa midna consensus waa heshiisa la gaaraya macnaha disarmament demobilization ciidanka meel la isugu geeyna dad la soo doortay xukumaaya ciidanka iyo lacagta
maxkamadihiina waa shaqaynaa oo madax bannaan yihiin ninkii dembi gala qabiil ma gelina asagaa galay oo la soo saara marka annaga horta taas inaan ogaano hadda one of the easiest ways taas lagu gaari karana waxaa waaye doorasho hal qof iyo hal codoba divided sovereignty alxaakimiyadan kala qaybsan ama saadada shacabka loo celiyo kaas macna hadda Soomaaliland waxaan umaleynaa xogaa yar dhanka garanti soo xataa qabaa'ilkii hubka laga wada qaaday haddana waxaan u maleynaa weli qabaa'ilku waa hubaysan midda ugu dambaysa waxaa waaye asymmetrical masterska waxaan ku diyaariyay hadda kahor ma dhammaynin dagaaladan Soomaaliya darteed aan dalka uga soo laabteen dagaaladaas ka qayb galay dagaaladii nimankan wadiidka lagu geli jiray jaamacaddan waxaan ka dhiganayaa Virginia oo George Mason University of Minnesota and George Mason University of Virginia Arlington Virginia school waxaa ku yaala Institute of Conflict Analysis and Resolution hadda waxaa loo bedelay School of Conflict Analysis and Resolution waa meesha kaliya PhD looga qaato nabad samaynta conflict resolution PhD ku qaadan kartaa وانا laba qof ka qalin jibisay oo Soomaaliya intaan ka aqaano saddex qof meelahaas oo kale waraaqdi ugu dheerad aan ka qoray oo waliga niyadeeda aan ka go'in waxa waaye qabaa'ilku they have what's called asymmetrical systems asymmetrical waxa ku fahmi kartiin dawladda iyo shabaabka hadda oo kale asymmetrical warfare ayaga dagaal toos markii lagu soo qaado waa carraan soo rida asymmetrical marka waxa la lahaa laba system Adnan Solan waa yaqaana incompatible oo laba computer isla shaqeyneen qabaa'ilka Soomaalida saas waa dawladda hawiye iyo digle marifle isaaq saas waa nin markuu hadlay halkaas uu ka hadlaa mid kalena halkaas uu ka hadlaa marka waa maanta hadii 2 milyan oo saac aan idin siino waa saas ku dhamaanay asymmetrical systems waa systemyo oo incompatible see marka lagu gaaraa inay compatible noqdaan oo waxa lagu gaaraa markaan ka hadalna facts waraa adiga haye xaqiiqda haysid maxay tahay dadda waxay yiraahdeen Xasan Sheekh wuxuu ka dambeeyay dagaalka Garowe ka dhacay in la yiraahdo rasiidka noo keenay هذا رصيد كنتين أنا جن رعنا مركز أنا وري عنك وحش شيء وروني عند بقلنا أسكر نون يعني دين تنساس كل سنة هاي أو ما أعرف دين الإسلام كحتى وحلا هذا هاي البينة على المدعي أفك وحشكت أو إلى ذلك ها توجه أسوي عليها عدين كم واليمين على من أنكر أسكنوا حالي وري هذه إنكر هذا دارو اللي ساسول مركا enlightenment يوروب ناس أنت هسه كسالة سنة أيضا the Max Weber أخرية Germany وليه يوروب هرمركيدو wuxuu ku xirnaana the rational institutions Adnan Solan actual example waa kaga mahad celina Soomaalida waa ku yirhiin dad macnaha labada dhinac karbaasha ma qoladeenan MBB da ahna karbaasha qolada CBB na karbaasha waa kaga mahad celina yani wuxuu leeyahay Max Weber ka rational institution hay'adahan waa inay aqli ku shaqeeyaan cadeyn ma haysa ma iska bax cadeyn ma haysa ha taageer state ku markuu wuxuu noqonaa rational institution hay'a oo aqlaniya أنا مركز تاسان كلها تلين لها أنت سهربنا شيء أو وحنا مركز أنت كلا تنتي بنتلان بكاسة هايست سومالي هايست لكن سجار أنا وحنا مسني عبد الدنيا أنت خلدنا دان واشي مرة بنقول عليه وحكى لنا مع وراق ذي ماشي عن سوق جليه أحد صدق هذه حسب كليه ماشي ترتمس أنت كلو ماشي وديري أنت سهربنا شيء مع سنتي مع سلام عبد الناصر سمتلس and with you follow up question هذا no سمتلس أرنت أو يوروب أو wadamada nation states ka cusub oo hadda adduunka ku dhaqmo oo Europe ka timid oo ugu horeysay Faransiiska iyo Mareykanka iyo the Westphalia systemka one of the biggest precursor was separation of church and state. I hope you know that because isku haysteen and empires iyo diime iyo isku haysteen. Do you think that equivalent in Somali culture waa qabiil? And do you think we would benefit from a separation of qabil and state? Or madama or dadka ay jiraan dadkeena oo qabil ka soo uu yahay oo profession leeyahay ama shaqo oo profession leeyahay bal ka waran dawladda iyo representation kuwaas lagu soo saleeyo because personally I think they can never be in Somali qabil. It's almost impossible when I see on the order of Mbagati 20 years وجرا and every region every global was microcosm of Somalia. Now Puntland واحد لسه هستو نجدو واحد لسه هستو Hirshabelle is all of them they're microcosm of Somalia entirely and واحد منهم هو قبيل is وذر عديسنا. So هدي السوق هذا نسيت تصالحها or Western society nation state because also understand their precursor was separation of church and state. Don't you think we need a separation of qabil and state at some point? وكبر. وني هذا كور عيان رواتن كل شيء I encourage you أنا نكان أو science عرمان العمران the science of civilization قرني في تبنات ابن خلدون آخر كاسة أنا قاعد نشر هاي معناها وعنك وحال هذا فرس sociologist يلا ده دور خايم كي فرانسيسكا سيكوري شعوبتا قبلي أحسد أن نقول كلاتا state كحقوق بها هي إنه النقضاء قبيلكم بركورسر واي to the state
state kuna predecessor waa asaga macna wax si kala daan u dhigno qabiilkii waxa u baahan tahay inaad kula diriirtid xaq jirkiisa qabiil walba wuxuu leeyahay xaq jiru leeyahay wii xaq jiru leeyahay daarad xaq jiru leeyahay therefore marka qabiilkii inuu state ka taageero oo the purveyor of the state institutions noqda u baahan tahay fahmaysa marka hadduu saas yahay qabiilku wuxuu noqonayaa ma dhici karaba hadda adiga ado habargidra ama abgaala ma ka dagaalami kartaa maanta garow kama dagaalami kartaa purveyor ma batihid of the state institutions qabailka oo marka waxaan kaaga wadaa qabiilka inherently ma aha maxaa la yiraahdaa negative na ma aha positive na ma if any wa purveyor of the state institutions wa first but just a backup another backup ma gaxo codka ay soo laabanaya just rally hada Ahmed adaa ku xigo register rebaro dadka qabiilka ku dhaqmo dadka kaliya oo hadda ka fakaday waa khaliijkana they had a smooth transition from the Ottoman Empire oo Ingiriiska caawiyay to the discovery of oil laakiin dadka kale oo qabiilka ah oo dhan duurkay ku jiraan sida nomadska iyo Bedouinska iyo Alabaistiinka iyo North America iyo indigenouska Australia so anaga oil ma haysano wadanna kornaga ma xukumo and so what went wrong 20 years of Embagati order what went wrong how more can you apply qabiilka how long can you try so kalena fursadan siin Cabdinaasir Soola ayaana wuxuu soo galiyay video oo xamar kaga hadlayay أنا waxaan arkaa Embagati orderkii faa'iido badan uu yeeshay xamar hadda sidii ahayd 20 sano ka hor hadda ma ahan laakiin it has inherent institution dhibka jira waxa waaye dawlad dhexe oo waxa loo baahan yahay dalka gaarsiisa doorasho hal qof hal cad irrelevant uu noqonaa kala institutions qabiilka wali waa sii jira oo hadda ka hor nin wuxuu yiri anoo dayay doctor Abgal qof kale ma dooramayo waa jira macnaha ninka markii laakiin waxa mar walba xoogaysanay metrocracy معناها dadku waxay fiirinayaan hadda dadka aniga magaaladan aan ku noolahay dadka dhakhtarkii u tagayaan reer hebelana uma tagayaan isha markii laga qabto waxay u tagayaan dhakhtarka ugu fiican ishooday jecel yihiin gradually in public affairs waxay noqonayaan in la yiraahdo yaa ugu fiican oo shaqada noo qaban kara hadda Japan waxa la yiraahdaa public institutions waxa taga kaliya dadkooda oo the most intelligent yaa taga because maxaa dhacay prestigious waaye qofka asagiina wax buu baranaa dadkiisana wax uga faa'iideeyaa marka anu waxaan qabaa one man, one person, one vote can angalno and let us trust the Somali population. We're very competent with that can. Wama sinti. Abdina sumqata walaal xajoogto. Safa lagu jira waa mahsan tahay waxa ku xiga waxa ka horeeya kaliya Mr. Ilona waxa ku xiga Faisal ku xiga marka. Thank you very much. Wama sintin adinka dhan. Samatal wuxuu ka sheekeynaa shaka fiican ma sha Allah dadkaas oo kala loo baahan yahay niyo nasif dadkaas oo kala soo dhaweeyna Cabdinaasir adinka dhan ma sintiin garogari adinka dhan bulshada dhan meesha joogta Soomaaliyeed ma sintiin niyo arintii hadda title ku waa la bedelay oo title kaas waxa u maleynayaa inaan daacad ka ahayn